markale ayaa laga cabsi qabaa magaalada Gaza inay gasho xaalad adag oo bani'aadanimo kadib dagaalo laga baqdin qaba inay halkaasi ka dhacaan. Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiintu waxay isku jeedinayaan hanjabaado culus. taasina waxay keentay in qaar ka mid ah mas'uuliyiinta labada dhinac ay ka hadlaan arrintii ugu adkayd ee magaaladaasi markale laga cabsi qaba inay mugdi geliso. muxuu yahay hadalka la yaab kale ee ka soo baxay wasiirka maaliyadda Israel Smotrich iyo ballanta uu qabtay Israel ee ku aadan in maalinta Sabtida ah haddii aan la fulin go'aanka Israel ay doonayso ay sameynayaan dagaal cagmarin ah oo ka dhacaya magaalada Gaza. warbixin dhinacyo kala duwan taabanaysa uu qoray wargeyska The New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa waxa uu rajo xumo ka muujinaya wargeysku in dowladaha reer galbeedka ay ka gaabinayaan. waxa uu ku tilmaamay gardarro Israa'iiliyiintu ay damacsan yihiin in bariga dhexe ay uga shidaan qalalaaso culus oo sabab u noqon karaysa in amniga gobolka uu faraha ka baxo. warbixin cilmi baaris ay qortay jaamacadda Harvard ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay muujisay in 70% shacabka Ameerikaanka ah ay ka soo horjeesteen go'aanka lagu tilmaamay qariska tuurnimada ee madaxweyne Donald Trump uu ku doonayo in dalkiisa uu kula wareego magaalada Gaza. warbixin dhinacyo kala duwan taabanaysa oo arrimahaasi la xiriirta ayaan rabaa inaan idinla wadaago. goor dhaweydna ciidamada Israel waxa ay saaruuq xoog leh ku tuureen magaalada Gaza. waxaa lagu tilmaamayaa daandaansi dagaal cusub oo halkaasi ka soo fool leh. barnaamijka Barrow Show ayaa daawanaysa saaxiibayaal. bariga dhexe ayaan dul istaagi doonaa isbedelada amni, siyaasi iyo sidoo kale kuwa la xiriira juqraafi siyaasadeedka gobolka ayaad sidoo kale daawan doontaan. meel kastoo aad joogtaan ku soo biira YouTube-kan oo subscribe dhaha, share gareeya muuqaalkan saaxiibadiina la wadaaga. aad ayaad u mahadsantihiin. Netanyahu waxa uu fulin waayay ballantii ay galeen isaga iyo Xamaas kadib markii kooxda Xamaas ay sii daysay dhowaan 6 Israa'iiliyiin oo ay ku haysteen magaalada Gaza. ujeedadu waxay ahayd 602 la haystayaal oo Falastiiniyiin ah in lagu bedesho 6daasi qofood, laakiin Netanyahu waa uu ka dhaga adeegay baaqi caalamka iyo waliba ballamihii horey loo galay. waxna uu mar kale soo saaray gorgortan kale oo hor leh oo sababta u noqon kara in qoriga xabadu ay ka baxdo magaalada Gaza iyo Israa'iil ba ay dagaalo culus ay dib u galaan. afhayeen u hadlay kooxda Xamaas oo la hadlay telefishinka afka Carabiga ku hadlay Al Jazeera ayaa waxa uu sheegay in ay u diyaar garoobayaan haddii 602daas la haysta la sii dayn waayo dagaal kale oo hor leh oo bariga dhexe uu wajihi karayo. waxa uu sidoo kale sheegay in aanu diyaar u ahayn in ilaa iyo dadkaasi laga soo daynayo ay qayb ka sii ahaadaan wejiga labaad ee xabad joojinta wadahadalka laga galayo, isagoo tilmaamay in Netanyahu uusan ahayn amaba uu yahay nin aan wacadka iyo ballanta ku fiicnayn oo goglihii rag uu ku xaajoodaba uu ka baxay. haddaba hadalkani waxa uu muujinayaa mid saameyntiisa leh, waxaana laga baqdin qabaa dagaalada magaalada Gaza inay dib u soo laabtaan. 2 milyan oo halkaasi ku nool ayaa weli wajahaya xaalad adag oo bani'aadanimo oo noloshuna ay ka sii darayso, laakiin Israel ballamihii lala galay ayay ka baxday ayuu leeyahay ninkaasi afhayeenka ee u hadlay kooxda Xamaas oo waraysiga gaarkaasi ee telefishinka Al Jazeera. Xamaas waxa ay ka soo baxday ballamihii lala galay, waxa ay joojisay duqaymihii Israel ay ku qaadaysay weeraradii tooska ahaa ee ka dhana ciidamada Israel, waxaana sidoo kale ay fulisay ballamihii ku aadanaa isweydaarsiga maxaabiista. laakiin xafiiska ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa guud ahaanba laalay oo meesha ka saaray arrin la xiriirtay inay sii daayaan 602 ruux. war ka soo baxay xafiiskiisa waa Netanyahu iyo waxaa lagu yidhi in maxaabiistaasi sii dayntooda la hakeeyey sababo la xiriira ku xadgudubka maxaabiista Israa'iiliyiinta ah oo ay sii daynayso Xamaas. kooxda Xamaas waxay ku tilmaantay hadalka ka soo baxay Benjamin Netanyahu inuu yahay daandaansi ujeedkiisu uu gadaal ka taagan yahay boorisku qaris dagaal, laakiin mar walbaba ay diyaar u yihiin inay istifaacaan oo ay ka hortagaan ciidamada Israel ee hadda u biratumanaya in ay soo weeraraan magaalada Gaza.
wasiirka maaliyadda ee Israel Smotrich ayaa waxa uu soo saaray war la yaab leh isagoo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta Israel ayaa waxa uu yiri magaalada Gaza waxay ka warrami doontaa taariikh la yaab leh oo ku soo fool leh haddii sabtida soo socota ay sii deen waayeen guud ahaanba maxaabiista Israa'iiliyiinta ah oo ay Falastiiniyiintu gacanta ku hayaan. hanjabaadan ayaa waxa ay muujinaysaa in madaxda Israel mar walbaba ay ku goodinayaan dagaal hor leh iyo jabinta ballamihii iyo wacadkii hore loo galay ee caalamku gorjoogtada ka ahaa. hay-adda Human Rights Watch ee ka warranta arrimaha xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeynaysa Israel in ay geysanayaan gadoofallo isla markaana ay hor istaagayaan wax kasta oo aas-aasiga u ah nolosha oo ay u baahan yihiin dadka rayidka ah. hay-addu waxay tilmaantay in Netanyahu iyo sidoo kale maamulka Tel Aviv loo baahan yahay in ay tixgeliyaan wacadka isla markaana ay meel iska dhigaan waxyaabaha la xiriira ku xadgudubka xuquuqda aadanaha. isla wararka bariga dhexe haddii aan ku sii socdana jaamacadda Harvard ayaa waxa ay soo bandhigtay cilmi baaris iyo waliba ra'yi aruurin la xiriirta sida ay u arkaan shacabka Mareykanka go'aanka madaxweynaha dalkaasi Donald Trump uu ku doonayo in magaalada Gaza ay kula wareegaan Ameerikaanka. 70% dadka Ameerikaanka waxay u arkaan tallaabadaas inay tahay mid xadgudub ku ah qaanuunka caalamiga ah iyo waliba haymanada ama kor ahaanshiyaha dalka Mareykanka, taasi oo mar walbaba noqon karaysa bay yiraahdeen wax aan la qaadan karin. 54% cilmi baarista ayaa soo dhaweeyay go'aanka Trump iyagoo ku sheegay in wax kasta lagu eegayo hanaanka oo ula macaamilayo haddii taasi ay dhacdana ay muujinayso in Ameerikaanku ay dhul helayaan waa 54%, laakiin 74% waxay leeyihiin cilmi baarista oo telefishinka Al Jazeera uu daabacay in ay tahay wax aan u wanaagsaneyn shacabka Mareykanka isla markaana haybadii iyo qabkii Mareykanka saameyn ku yeelan karaysa. cilmi baaristan waxay soo bandhigaysaa dadka Ameerikaanka go'aankooda kama dambaysta ah, taasi oo muujinaysa in Donald Trump ay saameyn ku yeelanayso. wargeyska The New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykankana goor dhaweyd warbixin uu qoray waxa uu ku tilmaamay in walaac xoog laga qabo in Israel xabad joojinta ay jabiso isla markaana dib loo galo dagaal culus oo ka dhacaya bariga dhexe. ilaa diblomaasiyadeed iyo kuwa amniga wargeysku la hadlay waxa ay tilmaamayaan in xogaha la helayo ay xaqiijinayaan in labada dhinac ay sameynayaan hub urursi isla markaana mar walba bariga dhexe laga filan karo dagaal xoog leh oo halkaasi ka bilaaban kara. Falastiiniyiinta ayaa iyaga tilmaamaya in ay diyaar u yihiin mar walba dagaalka, laakiin Israel ayaa ka meermeeraysa arrintaasi waxaana ay bixinaysaa goodin sababi karaysa in dagaaladu ay soo socdaan. xisbiyada maylka adag ee Israel oo qaarkood uu hogaamiyo Ben-Gvir wasiirkii hore amniga ee iscasilay ayaa waxa uu tilmaamayaa dagaal in la galo hadda inaysan lagama maarmaan noqon karayn sabab la xiriirta in la haystayaasha si degdega loo sii daayo. bariga dhexe xaaladiisu ma sahlan ah, markastana waxa uu foolanayaa dagaal iyadoo xogaha amni iyo kuwa diblomaasiyadeed labaduba ay tilmaamayaan in waawaanta iyo xabad joojinta halkaasi laga galay mar walba si degdega ay ku soo gabagaboobi karayso. ugu dambeyntiina bilyaneerka Mareykanka Trump hadda saaxiibka la ah laguna tilmaamo milkiilaha dowladda Mareykanka Elon Musk ayaa wajahaya fadeexad kale oo weyn kadib markii 150,000 oo shacabka reer Canada ah ay saxiixeen mooshin ka dhana isaga oo xilka ama baasaboorka Canadianka uu haysto lagala noqonayo. ninkan ayaa hadda wajahaya cadaadisyo caalami ah oo ay ka mid yihiin in dadka reer Canada ay si weyn ugu cuqdadoobeen wixii ka dambeeyay markii Trump uu ku dhawaaqay in mid ka mid ah gobolada dalka Mareykanka uu ka dhigi karayo dalka Canada. arrintan shacabka Canada waxay ku tilmaameen maadaama uu Mareykanka Trump ninkaasi la shaqeynayay isla markaana handadaad uu jeedinayo dalka Canada iyo shacabka wadankaasi sabab Elon Musk uu si haysan karo baasaboorka wadankooda inaanu jirin. baarlamaanka ayaa lagu wadaa in la geeyo arrintaasi
haddii baarlamaanku ay isku raacaanna waxa uu qorshuu yahay in loo wareejiyo maxkamad islamarkaana go-aankaasi la dhaqangeliyo. Elon Musk ayaa waxa uu dunida ka dhigay waxyaabo yaab leh. Waxa ugu weyn waxay tahay cuqdada uu kala dhex dhigay shacabka dalka South Africa gaar ahaan cadaanka tirada yar iyo sidoo kale dadka madowga ah. meelaha ugu badan oo arrintaasi ku faafiyana waxaa ka mid ah aaladda isaga sida gaarka u leeyahay ee X horena loo oran jiray Twitter. laakiin hadda Canada ayaa xaaladdu mar kale ay isaga kala dhaxaysa cirka isku sii shareeraysa. ninkan ayaa iskale shirkado waaweyn oo ay ka mid yihiin Starlink iyo waliba baabuurta korontada samaysa ee isagu uu sameeyay iyo shirkado kale oo dhinaca tiknoolajiyada ah. laakiin hadda waxaa la isweydiinayaa milkiilaha Tesla in arrimahan uu ka dabaalan karayo maadaama ganacsigiisa uu yahay mid ballaaran siyaasadda wadamo fara badan ay isqabanayaan. tabintii caawa qaybtan intaa ayaan ku gabagabeynayaa saaxiibayaal. waa Cabdilcasiis Barrow idile si aad macluumaad iyo warar kale oo dheer iyo heshaan ku soo biira YouTube-keena oo subscribe saara aad mahadsantiin.